munaasabad lagu caleemasaarayay ugaaska guud ee beesha Murile Weynteyn ayaa lagu qabtay gobolka Erer ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Ahmed Ibrahim Najaash ayaa warkan soo diray. munaasabadan caleemasaarka ah ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida, siyaasiyiin, culimo diin, aqoonyahan, salaadiin matalayay beelaha Soomaalida ee deegaanka dowladaha dariska la Ethiopia wax garad dhalinyaro isku jirtay wiilal iyo hablo. waxaana ugaaska si wada jira u caleemasaarey ugaaska guud ee curudka Hawi, ugaas Sahal iyo ugaas Cabdirasaaq, ugaas Cali oo ah ugaaska beesha Jidle ahna ugaaska guud ee beelaha Hawi dowlad deegaanka Soomaalida. goobta caleemasaarku ka dhacay oo ah geed raqi ah ayaa waxa xukuumadii kala duwanay dalka Ethiopia ka armin jiray ay ku dhibaateeyeen ugaaska abiis ehelkiisa, iyadoona si wanaagsan goobta uu caleemasaarku ka dhacay loo xadhay ayaa waxa uu waranti ka hadlay ugaaska guud ee curudka Hawi, ugaas Sahal. hadlaya afkii beesha curadnimadeeda inaan maanta raqay taagnaado oo geedkii taariikhda lahaa dadkan deegaanka dantooda iyo waxtarkooda iyo kasamata bixinta gumaysiga waqtiga jira dalkan lagaga tashan jiray ay fadhiyaan. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu raadkiisa raad lagu barakoobo oo lagu nabdo, lagu walaaloobo labada bulsho ee deegaanka wadaag